ومركي جه هالإيدي ما شرته ما بس كيلو يروح عيالك حصرين ما شرته والله هذه مركي جه لسه واحد حبض بحكو قادر يا تارك بهرو واي هكون لقوا تهوارو قرن كتاكو مهشين دستور كانوا مو كيرين اسمه قرنه أفوايل معها dalkuna ku hormar maayo caynka waxaan ku hormaraynaa ummadda maxaad u qabanaysaa xisbaa tee maxaad haysaa urba tee maxaad haysaa haad burhaanak maanta la joogaa madasha waxaan ku soo gabagabeynayaa xisbiyada doora haddii markayga la isii waayo qori ayaan wax ku helayaa waa erey ka soo baxe mudane muuse biixi oo ugu baaqayo qolada mucaaradka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دبادة مانتي ورركا إني هينو ميل كستا جوكتان إيسا كستان ودقي سنيسان سور دبادة مدنا مصبح ومان تكحل الحلفت أيا كل شيء يعني الدولة الشاذة سيدي هيد مثلا سيدي الله أنسحيه مثلا سيدي لو ترجلي أو لو هالشيء أي تهي وحبنا إسكبدرين لكن أي لو بهاي هاي إني مرول بو نبضي وهذا جرك أي دولة الشاذة سيدي يكوها بون تهي إني كل عوض haddii dawladdii misna dadkii mucaaradka ahaa ay fahmi waayaan sida ay ahayd misna ay noqoto inay xaalad isbedesho qori ayaa wax ku raadinaya haddii waqtigeedii wuxuu sheegay inay ay suurtagelaynin misna ay dhicinin hadda ka horna ay dhicin hadda ka dambana ay dhicinin hadda la taagan ay dhici doonto haddii ay doorashadii sidii loo baahnaa inay u dhacdo ay ka suurtageli wayso haddii sida habboon loo marayaa ama siday ugu habboon tahay haddii laga reeyo oo ay dhinacaada ka weecato haddii waad samraysaa waana sii joogsanaysaa teeda kale wuxuu sheegay haddii ay suurtageli misna ay noqoto in ay isjiid misna ay xoog wax ku raadsan misna xoog baan wax ku heli ay noqoto haddii inay marnaba dhicinin misna ay ka dhicinin adduunka misna meesha Soomaaliya asaga marka ayada Somaliland marka ayada madax u ka yahay madaxweyne uu yahay marka wuxuu ugu baaqay xisbiga mucaaradka ay la lolamayaan misna xilkaas inay qaadaan rabaan oo ka wareejiyaan mudane Muuse Biixi inay loo baahan yahay inay sidii ay sharciga u dhigayay misna ay u waafaqsanaa sharciga ay soo maraan wixii marka ayada ahna ay loo baahnaa ee sharciyan u dhigayay misna loogu talagalay inuu ku dhaco doorashadaas ay maraan teeda kale wuxuu sheegay in arrimaha social media ay ma artifulay ilmo ay tahay oo iska wax macna aan lahayn teeda kale wuxuu ugu baaqay xisbiga mucaaradka haddii ay u baahan yihiin loolantan misna xifaaltan macnaha in ay soo istaagaan debate misna meelaha loogu talagalay in labada qof wixii uu tarayo misna wixii uu u taray dadkii uu tuso misna uu u sheego inuu meelaha ka soo qayb galo oo uu meelaha haduu istaaga baraha bulshada uu ilmaha iyo ciyaalka iyo aan ku dhahay cida maartay dumarka uu marka ayada uu ku madadaaliyo waxa kale oo uu sheegay in ay doorashada asaga uu marka ayada uu diyaar u yahay uu isku diyaarinayo lolatanka misna inuu mar kale uu ku soo noqdo haystaanka sharcigi uu dhigayay misna uu u waafaqsan yahay inuu soo noqon karo uu ka loltamayo inuu kursiga mar kale uu ku soo noqdo inuu ku rajeenayo waxa kale oo uu sheegay in ma artay waqtigii loogu baahnaa ay dadkii ay u soo banaan baxaan ayna doortaan sidii ma artay sharciyan misna si asaga uu ugu soo noqdo kadibna hadii wadankii meel uu taagnaa misna meesha uu joogay horay uu uga sii dhaqaajiyo maadaama hadii suu sheegayo had dagaalal badan iyo ma artay in wadanka la dhici rabo uu sheegayo oo wadankiiba ma artay lagu soo joostay oo dhinacaha Soomaaliya iyo eblooba ogoleen horumarka Somaliland siba ay u ogoleen taasoo uu sheegay inuu dagaalkeeda weli sii wadi rabo hadii la soo celiyo mar kale uuna sidii ma artay Somaliland ay meeshii loogu baahnaa misna ay madaxdeeda misna madax banaaninteeda u horgelin lahaa misna u hirgelin lahaa in badan hadii kollay wuu dagaalamay misna sidaan ognahay in badan Somaliland misna Soomaaliya hadii wixii dhaxmar waan iska ognahay waxa maanta nologa sheekeynayaan in badan ay isku dayeen in ma artay madax banaan ay qaataan taas oo Soomaaliya ay ka hortaagan tahay hadii uu soo laabto wuxuu sheegay inuu la dagaalami doono misna uu soo noqon doono oo una uu baahan yahay inuu Soomaaliya uu ka banax baneeyo Somaliland hadii
haddii inay noqoto madax bannaan misena madaxdeeda misena dowladdeeda misena dhinac bay u go'do haddii waqtigii soo bilowday adduunkan ma ahayn waxay uga hortaagnaa misena ka diidanaan Soomaaliya bay ahayd wuxuu sheegay haddii la soo celiyo uuna ku soo noqdo inuu mar kale uu u baahan yahay misena uu u hargelin doono riyadii ee Somaliland ee lahayd oo ah inay madax bannaani ay ka hesho waddanka Soomaaliya oo in badan ba madax kaga taagnaa in badanna u diidanaa inay xorriyadeeda misena madax bannaanideeda ay la maartay la istaagto duurkaas teeda kale wuxuu sheegay dagaalka Somaliland ka socdo inuu maaragtay ku saleysan yahay misena qabiilada misena dad uu maaragtay inay horumarkii Somaliland ka soo horjoodo inay la kuleeyihiin oona rabaan inay burburiyaan Somaliland taasna ay u kaliftay inay meesha laga soo adeegsan karo misena laga soo geli karo inay noqoto Sool